السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برنامجكي وحبرشدا وحانا إليسو قدبينا يا قلب سميديا وبرنامجكي وحبرشدا وانا كلانكي كساب سنة دوكسيتكي عزبا لباكن سقاري تباكن إلا لباكن لباتنكا قيبتي سيل لبعض waxaana looga hadlayaa macalinka iyo ardayga iyo waalidka waxa looga baahan yahay waxaana idiin soo jeedinaya Professor Cabdirasaaq Maxamed Xaashi ku soo dhawaada daawasho wacan maadaama sanadka cusub la bilaabayo waxa fiican in aan ku galno sanadka cusub wax la isku ogyahay macallinkuna waxaan rabaa sanadkii hore iyo sanadkan in wax iska bedelaan ardaydu fasal bay ka tageen waxay u gudbeen fasal kale macallinku xagee u gudbaya fasalkii hore waa ka soo baxay fasal kale macallinka xagee u gudbi doonaa sanadaha ma u tirsamaya kaliya sanad koowaad shaqeeyay sanadka labaad shaqeeyay saasay u tago laakiin maxaa macallin u kordhay macallinka maxaa u kordhay taas aad u muhiim ah gaar ahaan shaqada anaga dhaxaysa oo ah shaqada ababinta amaarta ubadkeena waxbaridooda inaan soo saarno qof wax u ah dadka oo dhan meeshii loo dirsado qof ka soo dhalaali kara marka waxaa muhiim ah sidaa darteed macallinku inuu isu diyaariyo inuu noqdo qof murabbi ah oo ababiye ah taasaa ugu muhiimsan casharka iyo wax dhigidiisu waxay ka mid tahay waxyaalaha iyo hawsha ina saaran dusha naga saaran bay ka mid tahay waxaan ognahay in adimada ay waxbarashadu ku taagan tahay inay afar yihiin waxyaalaha adimada canaasir alcamaliya tacliimiya ama components of educational process waxa ay dhahaan adimaha habraaca waxbarashada afar wey mid waa ardayga mid waa macallinka mid waa maadada la dhiganayo midna waa dariiqada lagu dhigayo intaas la rabaa marka inay iswaafaqsanaadaan macallinka ardayga maadada iyo dariiqada wax loo dhigayo kadib waxaan u geli doonaa waxyaalaha kale aan rabno inaan dhigno maadaama aan cashar ka bilaabi doono dhigidiisa inaan isagana wax ka dhahno laakiin intaas midna lagama maarmo arday waa inuu joogo waa qasab haddii kale wax ma dhigayno macallin waa macallin tababaran inuu jiro tababar leh waxaa laga yaabaa meelaha kale ani waxaa laga yaabaa macallimiinta dadka ku jira inay dad badan ay ku jiraan ama macallinimo tababar u qaadan tan tababarkay ka mid tahay laakiin ma idinku jiraa qof macallina oo meel uusan u tababaran shaqo u raadsada xisaabiye dhakhtarnimo shaqo kasta tababaray rabtaa midaan oo bini aadamka la raba in la bedelo qof bini aadama rabta inaad ka bedesho tababar aad u baahan tahay weli tababarkaas inuu kaa go-an yahay waxa aad qaadato inaad ku tababarato marka ardayga macallinka maadadii wax loo dhigayo ka soo qaad ardayga waa diyaar macallin tababaro waa haynaa manhaj iyo muqarar
iyo buug habaysan oo qoranna waa haynaa maxaa dhiman dariiqadii soo maaha dariiqadii loo gudbin lahaa waana midda ugu muhiimsan dariiqada waa muhiima iyadu dariiqada qofka loo gaarsiinaya waxbarashada ma dhici kartaa dad badan oo waxbarasho baran lahaa oo ka tegey in aan aniga iyo adiga aan sabab u nahay dad badan oo wax dhigan lahaa marka dariiqada wax lagu dhigayo qof kasta idinka mida waxaa laga yaabaa dugsiyada qur-aanka marka la dhiganayo qur-aanka haddii ardada qaar weydiiso tiraahdo suuradee qur-aanka ugu necab tahay waxaa soo boodaysa washamsi waduuxa indhaha ardada lagu qaaday washamsi marka inaan washamsi naco yaa i nacsiiyey macalinka washamsi maxay qabtaa alladii baad gashay suuratu maxamed alladii gubtooy gamaarisoy geed dheer iga soo laalaaday alladii waaba aayad qur-aanka suurada fiican waxay gubaysaa laakiin markii aan ilmihii saas alladii loo keeno waxaan xasuustaa yaraantii arday inta lasoo qabto indhaha laga xidho wariiri loo geliyo washamsi lagu qaado xagee qur-aan nacaybkaas aada necab tahay waxaasi waxay ku gadoomayaan qur-aankii dhammaab nacaysaa marka qofku wuxuu leeyahy aniga dugsi waxaa ku dhacay macalina i nacsiiyey iskoolka anagoo maaragtay arday ka mida ardada aan wax u dhigto aan waxba sheegi jirin markii hore su-aalaha marka la weydiiyey aada ma sheegi jirin laakiin maanta waxaa kusoo aaday su-aal uu yaqaano ayaa ardadii kalena ay garan waayeen waan weydiisay su-aal saa gacan taagay anaa ka jawaabaya macalin waxaa tiri kan muxuu ka jawaabaya wuu istaagay si wanaagsan buu uga jawaabay laakiin weligiis wax kama jawaabi jirin waxaa tiri fariiso ilaahay baa kaa yeersiiye macalin ilaahay gama yeersiin buu yidhi anaa idhi annagaa dambi dhaq siinay qof wanaag sameeyo markuu wanaaga sameeyo leeda candhalaa curatay dhiirigelin buu u baahnaa wuxuu u baahnaa habka wax u dhigeen inaan maasha allah ardaygaas wuu dadaalay ardada kale maarata dhiirigeliya abaalgudsii marka qofka waxaa dhiirigeli qofku ma iloobayo waxyaalahaas gaar ahaan waxa aan aada loo iloobin waxaa ka mida waxyaalaha qaldan ee aan samayno qaara arday waxaa dhaha waaweyn oo hadda maaragtay jaamacada meel ka baxay ani macalinkaas ma cafin waxbuu ku bari jiray kolley waxbaa ka qaldamay may kaas cafis ma leh marka waxaan rabaa inaan anaga ardadii inaan wax soo jeclaysiino macalin oo qur-aanka dhiga ilmo yar u dhiga cunugii yaraa iskool in la geeyo ma rabo cunugii yaraa wuxuu rabaa iskoolka markuu aado meel fiican uu fadhiisanayaa waa la soo dhaweynayaa waa loo labisayaa markuu baxayo waxyaala badan annagaa eed ku leh ma garano macalinkii qur-aankaan arka wuxuu yihi cunugaan hal maxaa yihi macalin cunug iskoolka inuu jeclaado adi ma awood ma u leedahay inaad jeclaysiiso dugsiga awooda ule jeclaysii cunugaan gaarsii heer uu usoo ordo dugsiga qur-aanka laakiin haddii siiqo dheeraa wadato xataa haddaada wax ku dhufanin ay meelaha kuu saaran tahay ilmuhu markay aamusaan oo qur-aanka ay akrin waayaan oy aamusaan macalinkuuna iska mashquulsanaa markuu soo jeesto ardadii iska sheekeysanaysa ul geesaha lagala soo maro ul oo meerto ah saasoo loo soo wareejinayo oo qaarkood markii ay xataa macalin kusoo gaaro hoos ay wax ka dhahayaan macalin waa adiga laftaada hadday raban dhahayaan kor uqa marka waxaa weye wuxuu u malaynaa macalinkii in wax la akrinaya asaa wax la dhahaya hadii la rabo wallahi midkaas waa akrinaya mid kaloo aamusanna ul baa ku dhacaysa ul aan loo meeldayin kasoo qaad annaga iskooladii caadiga ahaayaan joognaa ul noocaasa kasoo qaad inaan nahaysan laakiin suuragal ma tahay inaan aniga oo macalina iyo adiga oo macalina aan sabab u noqono inaan arday hebel maade hebel aan nacbaysiiyo oo aan dariiqada aan wax u dhigay aan ku nacsiiyo maalinta uu asagu fiican yahay xataa haddii ay dhacdo kasoo qaada maanta adduunyada sidii hore maaha arday gadaal fadhiyaa wuxuu ku fiiriyey su-aal inta radka intay galaan su-aal noo fiiriyaan
alle macna su-aashaas maxay tahay su-aashiina ba ardayga waa haystaa jawaabteedii haddaa markaas xataa markaas kalsoonidaada wuu ku fiirinayaa ardaygu kalsoonidaada haddaad garan weyso maxaa samaynaysaa su-aasha waa garan weyni ka soo aada macalimiinta waa la aqoon waay su-aala lagu weydiiyey ma taqaanid maxaa orana markii aan wax aan haddaan xoogaa aan rabo inaan is ilaaliyo sharafteyda ilaashado oo aan iraahdo warba su-aashaasaa garan weyseen waxaa yarkaa miyaa garan weyseen oo yaa yaqaana waxaa yaqaana adaaba ku jirin waxaa tiri waa inoo berito su-aashaha laga soo jawaabo berito qof kasta oo su-aashaas keena ayaan rabaa intaasaan wax idi baraayey ma su-aashasaa garan weyseen ogow dadka su-aasha loo diray adaa ku jira berri saas maaha meel kastaad ka soo raadisay qaar gobolada ku jira mar isooba waxay dhahaan ardaydan su-aal u diro berri waa la isugaya macalin bal su-aasha iisoo raadi xataa macalinkii aad rabtay waa wacdayo waa heli weysay internetkii waa ka raadisay waashii waa weysay beri subax waa lagaa sugayaa subxii maxaa la samayn doonaa ila tahay subaxaas waxaan u malaynaa subaxaas inuu madaxan xanuunayo oo maamulaha aan soo wici doono saaka waa xanuunsanayo ma imaan karo xaggee la iga hayaa su-aashii waa la iga hayaa meelkii la iga hayaa ardayga waa inuu ufahmaa macalinku qof bini aadam ah oo dabiiciya marna wax garta marna aan ha garan wuxu uu garanayana ku bara wuxu uusan garanayna barta macalin waa qofka waxuu yaqaanana yaqaana wuxuusan aqoonna yaqaan wuxuu yaqaano wuu yaqaan wuxuusan aqoonna wuu yaqaan inuusan aqoon soo saas maaha wuxuu yaqaana waa yaqaan wuxuusan aqoonna waa yaqaanaa inuusan aqoon marka mayadaa ceeb ah waxbarashaa lagu jiraaye awal baanan ka hadlen ilmo yaryar ba aha ilmo yaryar ba aha dugsiyo dhexe sare iyo kulliyaa la dhigaa su-aasha waa la weyn karaa iska dabiici man qaala laa adri faqad aftaa ma garanayo waa soo baara ardayda maan barna xataa in wax baaritaanka aan laga weynaan oo aniga xataa waan la soo baaraya ila baaritaanka lagama weynaane dabeecad waxaan barna ah in baxdiga iyo wax baaritaanku uusan da' lahayn oo macalinku xataa u baahan yahay ayaguna aysan dhibsanin aysan ceeb noqon inay wax qaldaan maxaa u diidaya ardayga inuu marka aan ardayda ahna su-aal hadda intiinaan macalimiintiinaan su-aal hadaan idin weydiiyo wax gacantaagaa waa yari hayaa u diyaara su-aal saaka macalimiin baa hor fadhida yaa su-aal u diyaara hal qofaa gacantaagi labo su-aal yaa u diyaara markaa aawo inta qof ee meesha fadhida su-aalaho gacan maxay u taagi waayeen magacaa ya xasan su-aasha aan idin weydiin rabay magacaa bay ahayd waana ka cabsateene maanaa wax kale idin weydiin rabay haddaan idin dhihi lahaa su-aal waxaa idin weydiin lahaa magacaa ah kulligiin gacmihiina taagaleen laakiin ardayga maxaan ugu haystaa anigaaba aamusan be maxaan udii ardayga hadduu ka baqayo inuu fashilmo waa inaan barnaa in fashilaad iyo khalad iyo waxaas aysan ceeb ahayn in qofku qaldami karo saxi karo haddaad sabuurada ku dhigto wax kaa qaldan inayan dhib lahayn wax dhiba aysan lahayn qalad ceeb maaha waa waxbarasho weeye dariiqa waxbarashada ku jira marka dariiqada aan wax u dhigeyno waa inay ahayd dariiqo saxan ardayga dhiirigelisa soo saas maaha ardayga dhiirigelisa dariiqo ardayga u horseeda inuu wax baaro ma aha dariiqo ardayga u horseeda inuu wax dusha ka qabto keliya uusan waxbana ka aqoon dariiqadan waxaan u diyaarinaynaa qofkan inuu cagihiisa ku istaago ilmaha yar haddaan masaasad siin jirnay ya waa in masaasada uu kasoo weynaadaa cunuga yarna waa inuu masaasada waxbarashada ka weynaadaa saas maaha waa inuu gacantiisa wax ku qabsan karaa oo marka wax la weydiiya isaga wax raadsan karaa ar mas-uuliyadaas macalina iskale annaga ayna saaran tahay ardaygaas inuu wax barto wax fahmo wax dabaqo ana isaar